wafdi hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cabdullaahi ayaa maanta soo gaaray garoonka Balidogle agaasimaha iyo wafdiga hogaaminaya ayaa waxa garoonka Balidogle ku soo dhaweeyay kusimaha gudoomiyaha degmada Wanlaweyn mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda koonfur galbeed Soomaaliya ujeedada safarka agaasimaha ayaa ah kurgalida xaaladda degmada iyadoo la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada safarkan ayaa kii ugu horeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ku timaado degmada Wanlaweyn maanta waxa farxad weyn noo ah in aan ku soo dhaweyno Balidogle International Airport Balidogle dadka ma wada yaqaaniin laakiin agaasimaha maanta waxa rabaa koonfur galbeed airportada in badan waa soo maray airportka kugu dhinayna waa kan agaasimo ku soo dhaw airportka Balidogle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومي أيدي ما سنت سود وينتين سميتي ما شاء الله أيدي كلنا تكمل والوين قارهان البرك بلد دولة رمت إن شاء الله وظف هذا دونا معمول كنا لفرد هذا إن شاء الله أيوه ضمان معمول كدقمة وأنا إن شاء الله وظف هذا دونا وسفر بوغشيو إن شاء الله سفر كنا أنتم وذرونا والبدن وضع doon insha Allah eedeeda ma santa soo dhaweynta soo dhaweyn kadib waxa loo soo galbiyay gudaha degmada waxaana si diiran u soo dhaweeyay xubnaha maamulka taliyayaasha ciidanka agaasimaha ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta waxaana ay u sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka degmada Wanlaweyn sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay inuu kulamo la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada Wanlaweyn Cabdi Qani Maxamed Xasan warbaahinta koonfur galbeed Wanlaweyn